Somaliland oo maanta xukun dil toogasho ku fulisay laba qofood muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal labadan askari ee lagu fuliyay dilka toogasho maxay horey u geysteen yaasa saxiixay kiiska lagu tooganayo muuqaalkan ayaan qodobada oo idinku jeexjeexi doonaa laakiin intan u guda gelin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggan follow soo mahadsanida aynu ku bilawnay xukuumadda Somaliland ayaa saakay xukun qisaas ah ku fulisay laba gacan ku dhiigle oo dhawaan lagu xukumay dil toogasho kadib markii lagu helay dilal ay ka geysteen deegaanada maamulkaasi toogashadani ayaa ka dhacday duleedka xabsiga Mandera waxaana ragga la toogtay shalay dilkooda saxiixay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyadoo sidaasi lagu geeyay tiirka cadaaladda isla markaana laga oofiyay qisaasta marxuumiintii ay horey u dileen labada nin ayaa waxa lagu kala magacaabaa Exbol Maxamuud Cali Nuur oo loo qisaasay marxuum Ex Gaashaanle Cabdi Cali Nuur oo taliyaha booliska saldhigga Maxamed Mooge kana mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee booliska Somaliland isagoo dilkaasi u adeegsaday toorey askariga dilka geystay ayaa waxa taliyihiisa kala dhaxeeyay khilaaf hoose isagoo kadibna si gaadma toorey ugu dhuftay taliyaha ayaa dhaawacii soo gaaray kadib u geeriyooday waxaana horay halkan idinkula wadaagnay muuqaalka la xiriira warbixinta taliyaha uu dilka u geystay askarigani ee lagu magacaabo Cabdi Cali Nuur sidoo kale gacan ku dhiiglaha labaad ayaa waxa lagu magacaabaa isaguna Saalax Isaaq Maxamed isaguna waxa loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Ex Buux Mawlid Ismaaciil oo ka tirsanaa jiray ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gibiley ehelada marxuumiinta ayaa soo dhaweeyay qisaasta lagu fuliyay gacan ku dhiiglayaasha maadaama ay cadaaladda marisay xukuumadda Somaliland horay Somaliland ayaa sidaan oo kale toogasho ugu fulisay dambiilayaal kala duwan oo dilal ka geystay deegaanada maamulkaasi waana arin loogu bogaadinayo maamulka cusub ee uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro maadaama lagu kala baxayo cadaaladda iyo go'aanada ay soo saaraan maxkamadaha ka jiro deegaanada maamulka Somaliland kuwaasi oo ay ku amaaneen bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi sida go'aanada degdega ay u qaataan maxkamadaha darajooyinka kala duwan ee maamulka Somaliland iyo sidoo kale hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka Somaliland oo lagu daray laamaha amniga maamulkaasi daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggan follow soo si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida